dalka Jabuuti waa dal walaalo aanu nahay labada madaxweyne waa hiil walaal waa laba dal ma aha waa hal dal oo runtii waxaan dhihi karaa oo Soomaali waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxa kamid tahay iskaashiga labada dal sidoo kale iyo qaabkii maadaama ay kamid yihiin dalka walaalana ee Jabuuti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada AMISOM ee dalkeena Soomaaliya sidii ayada sidoo kale isaga kaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay sameynayaan dadaalo aad iyo aad u xoogan waayidii hore waxa jirtay in AMISOM ayaga ay dagaalamaan laakiin waqtiga hadda aniga aan position-kan aan joogo waxaa la sameeyay dagaalo oo runtii loogu soo jeedo ururada al-shabaab ee badbaada 1 iyo badbaada 2 oo runtii aan dhihi karno guulo badan ayaa laga gaaray waxaana filaynaa waqtiga hadda la jooga al-shabaab inuu awoodiisa ay tahay maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM walaalena AMISOM dadaalo badan ay ku bixinayaan waxa ku cad qorshaha kala guurka transition plan-ka siyaabihii AMISOM ay u bixi lahayd qaabka ay ugu bixi lahayd meelaha AMISOM-ta ay banaysana waxaa loo diyaarinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan amnigooda insha Allah ta'ala sidii ay ku qoran qorshaha kala guurka ay wax walba ay ku dhamaan doonaan